waxaan idiin soo gudbinayaa qiso yar oo cajiib ah waxa ayna ka hadlaysaa wanaagga iyo sida qofka uu noqon karo noloshiisa marka uu doorto qof wanaagsan iyo qofkii uu qalmo mar walba waxaad ogaataa qalbiga ku xiran Allah inuusan cidloonin noqon ruux ku dadaalo cibaadada Allah waxaa noo socdo qisooyinkeeni taxanaha kuwaasoo mar walba u soo gudbino saaxiibada ku xiran bartayda YouTube-ka Socdaal 24 iyo bartayda TikTok-ga Socdaal 24 qisada ay idiin wada caawo waxa ay tahay gabar aad u wanaag badneed cibaadada Allahna ku fiican Allah maxaa ku dhici doono ilaa iyo dhamaadka qisadan haddii aan la joogto waxaa hubaal ah in qalbigaada uu dareemi doono naxariis fara badan adiga ahaantaada waan ogahay in way ku saameyn doontaa sidaas oo ay tahayna waxaan jeclahay saaxiibadeyda inaan u soo gudbiyo qisooyinka cimri qaadashada si noloshooda wax badan ay ugu bedelaan waxa ay ku bilaabanaysaa sida tani gabadhan waxa ay ahayd gabar qurux badan oo mar walba ku fiican waxayna ku fiicneed dadaalka iyo akhrinta quraanka kariimka sidoo kale waxa ay ku fiicneed cibaadada Allah mar walba waxa ay ahayd qof qalbigeeda uu ku xirnaa Allah waxa ay ku dadaali jirtay waxyaabaha Allah oo faray waxa ay ka reebneed wax walba oo Allah ka reebay waxa ay qalbigeeda mar walba ku wanaaji jirtay kelmadaha khayrka badan waxayna saaxiib la ahayd kuwa mar walba diinta islaamka ka run sheego gabadhani waxa ay ahayd gabar aad u wanaag badan oo xijaaban khayrka Allah ayayna ku dadaali jirtay nolosheeda waxay aad ugu dadaali jirtay waxbarashadeeda waxayna inta badan diiradda saari jirtay barashada quraanka kariimka waxay ahayd gabar aan dhihi karno waa xural cayn oo ayadoo kala dunida lama keenin nasiibna uma yeelan dunidan inay ku xarakooto gabdhuhu waa ay kala nasiib badan yihiin waa ay kala qurux badan yihiin waa inay kala dhalaal badan yihiin sidaas oo ay tahay gabadhan waxay aad ugu fiicneed barashada quraanka kariimka sidoo kale waxay ahayd gabar mar walba jecel kelmadaha iyo wax walba oo khayrka ku saabsan sidaas oo ay tahay waxa ay ka fakaraysay inay samaysato nolol qurux badan si markaas noloshaas guul ay ugu gaarto qofka nolosha aad la samaysanayso wuxuu bedeli karaa hab dhaqameedka noloshaada dabeecadaada iyo sidaa ahayd ruux wanaagsan markaad heshid waxa uu bedeli karaa ama wuxuu sii badi karaa heerka noloshaada ahayd asagoo kugu horseedi karo wax badan oo noloshaada ku saabsan inuu hore kuugu sii baro gabadhan waxaa loo keenay wiilal fara badan waxayna ku xulatay midkii ay islahayd kan noloshaada wax badan ayuu ku soo kordhi karaa waa ay wada socdeen muddo kadib waxaa la gaaray maalinkii farxadooda ama maalinkii arooskooda waana maalinka gabar walba oo arooskeeda ay ku faraxdo waana maalinka ay ogaato gabar qiimaha ay leedahay waxayna gabar walba jeceshahay gabadha kale aroos aan loo dhigin in ayada loo dhigo sidaas oo ay tahay waxaa la gaaray maalinkii arooska kadib waxaa dhacay gabadhii in la geeyo meelaha la isku qurxiyo ama bukuyeerada loo yaqaano gabadhi aad ayaa loo qurxiyey kadibna waxaa loo galbirabay in saaxiibkeed maalinkaas ama habeenkaas ay aqal galaan intii ay socotay hooshii iyo intii ay socotay qurxintii waxaa qalbigeeda soo galay alla nasiib badana oo qalbi Allah ku xiran marka uu soo xasuusto waxa laga rabo nasiib badana oo salaada markay qalbigaada soo gasho nasiib badanida oo hool adigoo lagu haayo markaa dhahdid waxaana ay marinaysa iga tir salaadii aan soo dukanaa nasiib badana oo qalbigaada khayrka markuu soo xasuusto nasiib badana oo noloshaada markay ay tahay nolol Allah ku xiran nasiib badana markaas ayay gabadhii ayadoo hoosha loo wado waxay dhahday abbaayo waan ku baryaa jooji oo iga tir ayay dhahday waxaan rabaa in aan soo dukado gabadhii qurxinaysa gabadha arooska markaas ayay dhahday maya
oo ma samayn karo midaas. Markaas ayay dhahday, waa codsi iga tir hawshan ay wadid. Amarka weyn ayaa imaaday. Salaadii maqrib ayaa la adimayaa, waan soo dukanayaa. Markaas ayay dhahday maya. Muran dheer kadib gabadhii shaqaalaha ahayd ama marinaysay make-upkii waxay go'aansatay in ay ka tirtirto. Kadib waa ay soo weyse qaadatay. Kadib salaadii ayay gashay. Kadib waa ay rukuucday. Kadib waa ay sujuuday. Sujuudi labaad ayay mar kale sujuuday. Markii sujuudi labaad ay sujuuday, in muddo ayay sujuudsaneed, waana ay ka soo noqoweysay. Alla nasiib badanaa gabadhii shaqaalaha ahayd ee make-upku marinaysay ayaa markaas u tagtay gabadhii oo muddo sujuudsaneed. Haddeeba fiiriso waa meyd. alla xanuun badanaa. Gabadhiiba haddii la fiiriyay meyd ayay noqotay. Waxa ay qisadan noo sheegaysaa Ilaahay hadduu kula jeclaado in meel khayr badan aa ku dhimanaysid adigoo sujuudsan, gabar aroos ah, Ilaahay soo geliyey salaadii maqrib inaad dukato kadibna aad ku dhimato. alla nasiib badanaa. Ilaahayou gabdhaha muslimiinta dhammaantood u naxariiso. Ilaahayou dhammaanteen qalbigeena ka dhig qalbi Allah ku xiran. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. inta aan ku kulmi doono qiso noocan oo kale ah, sidaas iyo nabadgelyo.